iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay roobabka guud ay ka curanayeen gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxay habeenkii xalay si ballaaran uga deen 7 kamida 9 degmo ay ka kooban tahay gobolka Togdheer. Haddaba barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo ayaa warbixin buuxda ka siiyay warbaahinta waxa uuna yiri sida taan xagga biyaha raxmadii Ilaahay xalay si fiican bay uga daaday gobolku wuxuu ka kooban yahay 9 degmo degmada Burco mooyaane inta kale xogaa shaawara oo tiixba anaga xaggayga helay laakiin degmooyinka kale laga bilaabo ruqsi balidhiig riixida doqoshay war cimraan qoryaale qoyta ilaa kalbare todobada kaleba uu helay waxaanu helin oo nala mid ah uu waraabeeyay baanu helin degmadaas aanu helin iyo degmada caasimadda ee Burco inta kale uu helay waliba xagga waqooyiga shishana tuulooyinka waqooyi si fiican buu helay waxaana kamid ah meelaha uu helay dawacaale ilka cadays balli rooble eeldeer iyo afweyn intaba uu helay buuhoodle degmooyinka hoos yimaada werwer iyo ayaanu helin laakiin coodan loo ka helay areadaas iyo qorlugadna wali ma helin laakiin dhammaan si fiican buu meelaha aanu helinna ama uu shuuxay si fiican buu biyadhigay waxa kale oo barasaab Qabo qayna dhaan ballaaran u diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan halkan baaq u marinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyaduna dhawaan kormeer ku martay waxa jira dhiba oo cudur baa ku jira ariga cudurkaas ariga ku jira waa shuban waxa laga soo sheegayaa jiidan hawdkoo dhan ee gobolka Togdheer ayuu ku koobay xanuunka waxa ay ka qaadeen arigaas ari laga soo celiyay xagga badda oo markii dambe dib loo keenay tijaarteenu ay lahayd ayaa xanuunkaas ay u sibir saaraya reer miyigu marka warbixinta kolley xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha u dhawaan way martay wixii ay ka qaban karayeen way ka qabteen research fiican way sameeyeen laakiin waxaan baaq u direynaa cid kastoo wax ka qaban karta xanuunka xoolaha ku jira waxa kale oo wasaaradda caafimaadka ka codsanaynaa maadaama waqtiga noocan oo kale roobku da'aan waxa dhaca shubano inay iyaguna tiimankoodii wareegi jiray u soo diraan saasaan iyagana maartay ka codsanaynaa Sakariya Cabdiraxmaan Ibraahim shabakada wararka madax banaana Hargeysa Price gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka